haddaba haddii aan intaa ku joojiyo qaybta ardayda barata caafimaadka aan ugu sharaxayay kelidii shaqadeeda, bal hadda aan sharaxaad kooban ka siiyo bulshada inteeda kale. aniga oo markaa intan ku sharxi doona af Soomaali baraxtiran, waayo marka ardayda caafimaadka aad hadlayso erayo qaad wad ku dardari kartaa maadaama kula fahmayaan oo ku sharxi karaysaa meel kasta waxa la dhaho. laakiin marka aad bulshada kale la hadlayso waa inta aad kari karto waa isku dayo inaad af Soomaali baraxtiran ku hadasho. marka waxaan halkan rabaa inaan ka faa'iideeyo maxay tahay, waxa weeyaan dawooyinka la yiraahdo kaarjabiyaashu dhibaatada ay ku keeni karaan shaqada kelid, oo waxa ay leeyihiin saameyn togan oo ah tan loo qaadanayo ee wanaagsan ee qofka in uu xanuunka ama dareemi kaarku dareemi ka jabiso. laakiin waxa ay leedahay saameyn taban oo ah dhib ku keenayso qaybtan aynu hadda marayno ee kelida ay dhibaato ku keenaysa. waa haddii qofku uu si joogto ah u qaatay iyo haddii qofku yahay qof weyn amaba uu qabo xanuuno kale sida hadduu qabo macaanka oo kale amaba xanuuno kale oo kaliya haya. marka haddaan si guud horta u yar sharaxo qaybtan maxaa la yidhaahdaa ama maxay tahay, kani waxaan odhan karaa waxa weeyaan haddaan Soomaalida ku sheego waa sifeeyaha dhiigga. waa qaybtan u qaabilsan kelida inay dhiigga sifeyso. taasi waa si guud. haddaba qaybtan maxaa la yidhaahdaa, qaybtan u sarreysa ee halkan waxaan odhan kan sifeeyay si guud ugu sheegnay. halkan aan ku sheegnay shaandheeye oo aynu soo qaadano shaandhada lafteeda. marka waa weegayso waa dhiiggiiba halkan kusoo dhacaya oo ka imanaya kelidka soo galaha kelida. dabeetana wuxuu ku dhacayaa shaandheeyaha, qaybtan shaandheeyaha. shaandheeyuhu waxa uu leeyahay saddex buu leeyahay lakab, sida ay shaandhadanba inaad aragtay mooyaan ay leedahay qaybo kala duwan oo isku daara. marka waxaa loogu talagalay nidaamka eebe in aanay dhiigga unugyada cascas ee dhiigga iyo borotiinka iyo waxyaabaha kale ee aadka u muhiimka inaanay kasoo dhex bixin oo aanay kaadida raacin. saa daraadeed aynu tusaale kasoo dhigano halkan waa dhiiggii maxaa ku dhacaya waa kaas ma arkaysa mooyi. marka baanaha cusub waxa weeyaan ku tuso maaragtay unugyada dhiigga cascas oo kale amaba waxaa heday borotiinski dhammaantood kama dhex bixi karaya. laakiin waxaa kasoo dhex baxaya macdanaha kale ee lafteeda jirka u baahan yahay ee aadka u yaryar ayuunbaa kasoo dhex baxaya. marka halkan ay soo gelayaan qaybtan oo qaybta ay kusoo dhacayaan. marka maxay sifeeyuhu dhowr qaybood isaguna kasii kooban yahay. qaybtan hore qaybtan oo laalaabatooyinka ama maaragtay waxaa la oranaya tuumbada ishoriyo daba marta ee hore, ta ishoriyo daba marta ee dambe, iyo tuumbada la yidhaahdo heni la yidhaahdo. marka iyo tii kale ahayd maxay tii saaraysi oo tuumbooyinka iyaguna saara ama si soo aruurinaysa waxaan odhanay saaraysi marka kaadi marka ay noqonayso. marka halkan waxa ka dhacaya isku daro intaan qaybood uu ka kooban yahayba Soomaali waxa kale oo hufid iyo haadintii ayuu noqonaysa. wixii loo baahan yahay waa loo nuugaya, wixii aan loo baahnayn waa laga saaraya. marka intaas waa sharaxaad guud. haddaba sidee bay maaragtay wuxuu yeeli karaan waxa la yiraahdo kaarjabiyaasha dawooyinkaas. kaarjabiyaashu waxa u yeelaya waxa weeyaan waxa ay hadda shaqadoodu tahay inay xidhaan si aad kaarka u dareemin wax la yiraahdo
waxa la yiraahdo prostaglandins bay xidhaya. Marka kan marmaysa inaan ingiriis ku sheego inta kala Soomaali isku deegaan soo sheegay. Marka taasi waa taas sababta laba shaqo qabata. mid waa in ay xidhayso maaragtay ama ay waxay sababtaa iyadu waxyaabahan maaragtay in kaarka oo qof inuu dareemiyo waa sababaysa in dareenteena dhigo jirto meel ku xanuunayso. marka taas ay xidhan ko haddaba tan shaqadeeda kale inay kaarka qofka u sheegto ama maaragtay meeshii caabo ka jiro ama waxaa soo dhan la soo daayay walkeeda shaqo kala jirto oo ah in ay kala bixiso maaragtay xididada si uu dhiigu fiican u dhex maro. halkaa marka ay marayso mar haddii la xidhay oo dawadan la yidhaahdo maaragtay dawooyinkan la yidhaahdo kaarjabaasha ay xidhayaan shaqadeedii labaadee ahayd xididada kala saarideedii ayaa meesha iyaduna ka baxaysa oo xididkii uu soo aruuraya. haddii xididkii intan leekaasaa u socday u yaraado maxaa dhacaya dee waxaa dhacaysa dhiig fiican ma soo geli doono sifeeyaha horta oo ko haddii uu kaa soo geli waana ka dhaafaya isaguna u yaraanaya. sidoo kale dhiigga ay u baahan yihiin maaragtay qaybtan sifeeyaashoo dhan kaas washaan leeyuha sifeeyaashoo dhan kay u baahan yihiin iyaguna u yaraanaya. maxaa ku dhacaysa abaar baa ku dhacaysa. marka abaarta ku timi way sidii geedka ayuu qalali karaa geedkiisu u yaraanaya. keliyuhuna maaragtay waxay leeyihiin 2 milyan oo sifeeyaashaas keli kasta 1 milyan bay leedahay. marka haddii ay dawadaas si joogtaa loo adeegsado waxa ay noqonaysaa in ay qofka dhibaato ku keenaysa ay dilayaan sifeeyaasha. qof sifeeyaashii ka dhinteenna dee kelidii wax tanbo sifeynaya ma jiraan. sidaas waxa ay tegaysaa waxyaasama kaloo soo yaraanaysa. waxaa ku imanaya unugyadan halkan ku yaala maaragtay ayuu barbar ku imanaya. waxay raacayaan maxay kaadida kabacdi kelidii marka ay yaraato marka dambana dee shaqadii way istaajinayaan. sifaynta haadista hufidda shaandhaynta ahayd ayay joojinayaan. markaa maxaa ku xigo qofkii in la yidhaahdo maxay hal la geeyo dialysis wax la yidhaahdo ama keli sifeeyaha kombiyuutaradaasa la geeyaa. dad badan baana uu dadkeena imka jiro waxyaabaha kusoo badanaya. markaa sababta u kalifta inaan idin sheego waa waxyaabaha soo kordhaya iyo dadka oo aan war ka hayn kaarjabayaashaas noocyo badan leh maaragtay paracetamol ha ahaato ibuprofen ha ahaato aspirin ha ahaato waxaasoo dhan soomaalida u qaar waxay yidhahdaan biririx adigu isku dar kaarjabiye mar haddaan waa ila garanaysa. marka kuwaasoo dhan dhibaatadaasay leeyihiin saameynta taban. marka waxaan leeyahay ka digtoonaada mar kastana ha iska qaadanina dawooyinka ee dhakhtar wuxuu idiin qori qaata. marka waa sidaas aasan kusoo koobaya. dawaduna maaha sida ereygan ayaan u isticmaala ereyga dawo oo dawo caafimaadayda sida waxaynu heesiinay ayuunbaa dawadii loo qaatay inay tahay gebigeedu wax wada wanaagsan 100%. marka ma wada wanaagsana saameynaha taban bay leedahay dawo kasta tan kaliya maaha. marka markasta marayo casharada wixii faa'iido bulshada loo wada soo gudbin doona. aasan kusoo koobaya maanta waa maasiti usii gudbin bulshada inta kale. wassalaamu calaykum.